Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baan idin salaamay saaxiibayaal. Waxaanu doonaynaa inaynu sameyno muuqaal AI ah inaga oo si tartiib tartiib ah iyo sida ay u kala horeeyaan aan muuqaalkan ku sharaxi doono. Way jiraan muuqaalo fara badan aan ku sharaxay, haddana still waxaa jiray su'aalo iyo weydiimo dadkii sameynayay qabsanayay. Marka ugu horeyn waxa aad u baahan tahay waa VPN waxa la yiraahdo. Intaas kadibna Google Chrome-kaaga ayaad ka adeeganaysaa. Marka waxaa jira VPN-yadu way kala duwan yihiin, midba waa nooc weeye, laakiin kan anigu iminka aan isticmaalayo waa kan la yiraahdo VPN Super Unlimited. Kaas baad aadaysaa, waxaad aadaysaa Play Store-kaad aadaysaa. Markaad Play Store-kaad aado, qayb searching-ka waxaad ku qoraysaa VPN. Markii aad ku qorto waxaad raadinaysaa hadba kan aad doonayso. Turbo VPN wuu jiraa, secure kana sidoo kale, laakiin kan baan inagu rabnaa hadeero VPN Super. Open baynu leenahayo, waynu soo furanaynaa si uu inoogu soo kaco VPN-ka aynu doonaynay. Waynu sugaynaa inta uu inoo soo saarayo. Sidan ayuu kuu soo saarayaa. Haddii aad toos rabto inaad u xiriirisana, meeshaas ayaad taabanaysaa. Ugu horeyn location-ka ayaynu dooranaynaa. Waxaynu dooranaynaa Germany oo kale. Xayeysiis baa gelaya, inta uu ka baxayana waynu sugaynaa. Balastaas sare ayaad iska taabanaysaa. Markii aad balastaas aad taabato uu kuu bilaabmay daqiiqadihii, wuxuu leeyahay you are connected. Okay, waynu ka soo noqonaynaa. Waxaanu aadaynaa Google Chrome-keena ayaynu aadaynaa inaga oo ka raadin doona VO3-geena aynu ku shaqaysan lahayn. Ugu horeyn waxaynu search garaynaynaa VO3 ama Flow. Hadda VO3 baynu qoranaynaa. VO3 DeepMind markii aad qorto waxaad ku dhufanaysaa kan ugu horeeya uu kuu soo saaro. Markii aad ka doorato oo halkan ku keeno, waxaad gujinaysaa oo aad ku dhufanaysaa try and follow meesha dhexe ay ku qoran tahay. Intaas kadib waxaa kasii dooranaysaa create with follow. Markii aad kasii doorato wuxuu ku geynayaa dashboard-ka hore ee website-ka aad wax ku sameynaysid muuqaalada. Ugu horeyn waxaad u baahan tahay inaad soo geliso ama si aad soo gashato Gmail-kaaga. Sidan ayuu kugu soo saarayaa. Waxaynu gashan doonaa Gmail-ka aynu doonayno. Intaas kadib horey ayuu inoogu galay. Halkaas ayayna ka shaqaysan doonaa oo muuqaalada ku jarjari doonaa oo wixii aynu sameyn karaynana aynu sameynaa. Halkan haddii aad soo gaadhay, get started iska dheh. New project haddii aad soo gaadhay, khalaas wax ku hadhay ma jiro. Kaliya waxa aad sameynaysaa waa muuqaalo iyo sawiro. New project ayaad dooranaysaa oo aad ku dhufanaysaa. Haddaba sida markii uu kugu soo saaro aad halkan soo gaadho, dhowrkaba way jireen saaxiibadu ay ka caawinaysay. Waa marka koowaad waxay odhanayeen markii aynu gelino qoraalka wuxuu iga dhigayaa sawir oo muuqaal baan u baahnayo sawir maanan doonaynin. Waa sax. Waxaa jira meel laga doorto waxaad sameynaysid, sawirba mise waa muuqaal. Halkan hoose ee falaadha dhanka bidix ka xigta ayaad ku dhufanaysaa. Saaxiibada qaar waxaa u dooran meesha inaga video inoo dooranaya aad u jeedada sare ayaa waxa u dooran image oo ah sawir. Qofkii markii uu qoraalkii geliyo waxaa u soo baxaya qoraalkii oo sawir ahaan ah. Taasina ma soconayso. Marka haddii aad sawir rabto sidaas ayaa u sameynaysaa. Haddii aad rabto videona, videogaas ayaad dooranaysaa. Hagaag markii aad videoga aad doorato wuxuu soo saarayaa waxyaabahan kale. Maxay yihiin marka? Waa marka koowaade kan waa cabirka 9:60 ratio.
iyo 60:9. Kani waa 9:60 waxa weeye cabirka TikTok inta badan loo isticmaalo muuqaalada reelska ee shortska sida YouTube shortska oo kale iyo TikTok iyo muuqaalada loo isticmaalo. Kan ku xigana waa muuqaalada maaragtay loo isticmaalo waxa la yiraahdo YouTube-ka iyo muuqaalada noocaas ah. Marka hadda waxaynu dooranaynaa 9:60 muuqaal TikTok ah. Hadda muuqaalka adigu aad doonaysidna adigaa yaqaana nooca u isticmaalayso. Haddii aad TikTok u isticmaalayso iyo haddii aad Facebook u isticmaalayso iyo haddii aad YouTube u isticmaalayso. Kuwan ka hooseeya 1x iyo waxaa leeyahay x1 iyo x2 iyo x3 waxa weeye hadda muuqaaladu inta ay yihiin. Qoraal baa ku baastigaraysay prompt markii aad ku baastigaraysay promptigaaga imse muuqaal buu kaaga sameynayaa. Hal muuqaal mise 2 muuqaal mise 4 muuqaal mise 3. Haddii aad tiraahdo 4 muuqaal iga samee, wuxuu ku siinayaa qoraalka aad siisay muuqaalo ah 4 muuqaal buu kaa siinayaa sida oo laakiin isku wada mid ah oo kala duwan maaragtay faceka iyo waxyaabahaas. Laakiin ka quruxda badan aad ka qaadan karayso taasina waxaa la isticmaalaa markii aad credit fara badan haysato ilaa aad bahasha iibsatay. Okay, halkii muuqaal waxaa kaa go'aya waxa la yiraahdo 20 credit meesha ugu hoose ay ku qoran tahay. Kani maxay tahay marka Veo 3.1 fast saddexdaas ayaa jira. Late waa kan ugu dambeeya oo ugu fiican. Fastna waa kan aan isticmaalaynay. Qualityna waa kii hore loo soo dhaafay la isticmaalayay. Marka waxaynu ka dhigaynaa hadda fast ka dhigaynaa maadaama kan aynu caadi u isticmaalno kaas uu yahay late-na oo lagu soo kordhiyay malaha. I think dhowrkii maalmood la soo dhaafay maynu eegin waynu eegi doonaa. Haddaba maxaa kuu soo hadhay meesha qoraalka oo 2 mid adiga u door leh in aad ku qorto maaragtay qoraal ka adigu aad maskaxda ku haystid inaad halkaas aad ku qorto deetana aad u dirto oo dhowna muuqaal ahaan uu kuu soo saaro. Qoraalkaas wuxuu noqonayaa af Soomaali uu noqonayaa English buu noqonayaa iyo inaad intaa ChatGPT aado ama Gemini aad tiraahdo waxaad ii sameysaa waxa la yiraahdo prompt noocaas iyo noocaas u baahanahay ii samee. Tusaale haddii aan iraahdo waxaan doonayaa nin ku jira xafiis odhanaya sidaas xiran suud Soomaali ah computer gacanta ku haya looga noocaas ka dambeyso. Haddii af Soomaali uu sheegto uu kuu soo saarayaa Veo 3 kaas horta ku bishaarayso. Haddii inta aad ChatGPT aado aad tiraahdo prompt ii diyaari noocaas iyo noocaas iyo noocaas isagana wuu kuu soo saarayaa. Marka hadda waxaynu sameynaynaa waxay tahay aynu aadno ChatGPT aynu u dirsano prompt qurux badan. Okay, waxaynu doonaynaa waxaynu ka dhigaynaa waxa la yiraahdo nin professional ah oo xafiis fadhiya suudna xiran oo Soomaali ah oo odhanaya kusoo dhawow Grad Creatives madasha xirfadaha iyo tababarka. Okay, intaas baynu u diraynaa ama inaad tiraahdo waxay i siisaa prompt nin xayeysiinaya shirkad odhanaya sidaas uu ku siinayaa. Okay, let's go aynu qorno qoraalka waxa weeyaan hadal badan isku daalina. Saaxiibey waxaa ujeedaa inaynu qoranay promptigii hal mid oo kalena waan idiin sheegayaayo warbahalkan waa hadba sida adigu aad u isticmaasho weeye.
haddii aad tiraahdo niyow muuqaalkii qaabka aan u doonayay uu ii soo saari waayo saas yani saasaan jeclaa inuu ka dhigo yani sida aad jeclayd inuu ka dhigo intaadan gelin ka hor u sheeg intay isku wareeri lahaydeen marka waxaa la sameeyaa waxaan waa la wada garanayaa waana la wada bartaa laakiin waxay ku xiran tahay hadba sida adigu aad u isticmaasho aad u adeegsato ayay ku xiran tahay waa nin iyo karaankiis ka dheh marka halkaasna qodobkaasna inaad ogaataan waa u diraynaa marka waa sugaynaa wuxuu ina siiyo deetana waynu soo qaadaynaa oo waxaynu ku baastigaraynaa promtigeena meesha la yiraahdo vo3geena okay wuu ina siiyey laga soo bilaabo meeshaas cinematic ilaa meesha uu ku dhammaado xaggan xariiqda inta ka sareysa waxaynu aadaynaa vo3geena waynu ku baastigaraynaa intaas kadibna haddii aad doonaysid in aad iska hubiso qoraalada iyo waxaad qortayna akhriyo eeg waxaad qortay halkani waa madasha barashada xirfadaha kala duwan ee digitalka ah waliba digitalka Soomaali waa qoray saas baa la rabaa inaad qorto hadii kale hadhow af Soomaaligu xoogaa maaragtay digital haddaan English ahaan ka dhigo laga yaabo in qaab kale uu akhriyo okay aynu u dirno markaa saaxiibayaal sida aynu u wada jeedno wuxuu noo soo saaray muuqaalkii aynu u dirnay marka aynu ku dhufano si aynu u eegno halkani waa madasha barashada xirfadaha kala duwan ee dijitaalka ah wow xitaa wuxuu ina siiyey loogadii marka muuqaalka u dhammaanay halkani marka saaxiibayaal waxaa ujeedaa waxaan u jeednaa inuu inoo sameeyo muuqaalkii sidaas ayuunu inoogu sameeyey quruxda badan waana ku qanacsannahay waadna la soo degaysaa qaabka loola soo degayna meesha ugu sareeya download ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa intaas kadibna waxaa ku dhufanaysaa kan hoose original size-ka ah sidaas ayuu kugu soo degayaa haddii aad doonayso in qof kale sawirkiisa aad ka hadashiiso ama qof kale sawirkiisa isagoo meel maraya aad ka dhigto ka hadashiiso iyadoo qudheedu way fududahayoo meesha balaaska ah ee hoose ayaad ku dhufanaysaa intaa kadibna waxaad leedahay upload image ayaad leedahay upload image markaad leedahay toos wuxuu kuu geynayaa meeshii sawirada kasoo qaadanaysay sawirkii markii aad kasoo qaado oo aad soo geliso xaggan waxaad ku qoraysaa wuxuu dhahayaa oo kale wuxuu dhahayaa rotation intaa kadibna wixii uu dhahayay ayaad gelinaysaa halkaas sumada garan saaxiibaya marka kaasina sidaas ayaa loo sameeyaa oo isaguna waa easy weeye waxaan rajeynaya inaad cashirkan aad fahanteen oo ku maasan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan sidoo kalena aad ayaan salaamaya saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu